waxaan la kulannay mucjiso la yaab leh oo markii labaad ku dhacday guddan iyadoo oo golaha deegaanku ay noo faaruqiyeen xafiisyadii maalintii hore waxaabaan fadhiisannay hoolkee maanta hoolkiina guudi waa laga sii xidhay waxaan halkan ka caddaynayaa in 2013kii ay miisaaniyadda dawladda hoose ahayd 329,700 miisaaniyaddii ay samaysteen 2014kii waxa ahayd 2,224,825 miisaaniyaddii ay ansaxsadeen 2015kii waxa ahayd 1,147,804 halkaa waxaa ka aragtaa lacagta intaa leeg iyo kharashka intaa leeg ayaa u baahan in lagala xisaabtamo xilka ay ummaddan loo soo doortay ay u hayaan hadda waxaa ceeb ah oo fadeexad ah in aanu ognahay in mashaariic fara badan oo sannadaha ku jirtay in aan la hirgelin oo aanay qabsoomin waxaa ceeb ah oo fadeexad ah in laga cararo cidda markaa dabagalka iyo xisaabtanka u qaabilsan dalkan waxaa ceeb ah in la xidho xafiisyada waa markii horeysay ay dhacdo inta aanu soconnay in maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii iyo xildhibaanada ay xidhaan xitaa hoolkii ay xidhaan maaha markii koowaad waa markii labaad doorkii hore waan u dulqaadanay waan u aamusnay waan u diblomaasiyanay in annagoo danta qaranka eegayna annagoo danta dalka eegayna annagoo danta gobolladana laga soo doortay eegayna ragga halkan jooga imika waa rag gobolka togdheer laga soo wada doortay sanadkii labaad ay ka dhuntay waxaa nagu waajiba within 2 weeks laba wiig gudahood inaan ka soo saari doono ribood khuseeya golaha deegaanka ee burca musuqmaasuq ma ku jiraa mise musuqmaasuq kuma jiro waxaan hubnaa sida haamaha shidaalku ishu u noqday xeer 23 uu ishu u noqday in golaha deegaanka ee burca uu ishu u noqon doono maadaama iska difaaci kari waayay musuqmaasuqii lagu soo eedeeyay maadaama ay ka dhag adeegeen awaamirtii oo barisaa ku bixiyay inay noo diyaar garoobaan